Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada Soomaaliya kula yeeshay kulan gaar ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Itoobiya Abiy Ahmed oo safar shaqo ku yimid maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyagoo adkeeyay xiriirka taariikhiga ah iyo derisnimada soo jireenka ah ee labada shacab oo ay aas-aas u tahay is-ixtiraam, qaranimo iyo ka dheeraanta faragelinta arrimaha gudaha dal kasta ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay kulamadooda. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay is-afgaradka ay gaareen taliyeyaasha ciidamada Soomaaliya sida militariga iyo ciidamada difaaca ee Itoobiya ee loo soo gaabiyo ENDF, kaas oo lagu xoojinayo amniga iyo xasilloonida gobolka. Waxayna bogaadiyeen bilowga wadahadallada farsamo ee ka socda Ankara oo muujiyay sida ay labada dal uga go'an tahay wada hadal wax ku ool ah iyo iskaashi miro dhal ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Soomaaliya soo dhaweynta diiran ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisa, wuxuuna adkeeyay mudnaanta uu dalkiisu siinayo xiriirka laba-geesoodka ah ee kala dhexeeya Soomaaliya si ka tarjumaysa danaha labada dal iyo xasilloonida gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed booqashada uu ku soo gaaray Soomaaliya iyo wadahadallada miro dhalka ah ee ay ku yeesheen Villa Soomaaliya, ayaa sidoo kale ku celceliyay madaxweynaha Soomaaliya aragtida soo jireenka ah ee ay ku dhisan tahay diblomaasiyadda Soomaaliya ee ilaalinta deris wanaagga, is-ixtiraamka qaranimo iyo in aan cidna laga aqbali doonin ku xadgudubka midnimada iyo wadajirka shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Wafdiga Abiy Ahmed ayaa sidoo kale galabtaba ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isagoona ku sii jeeday dalkiisa. Inkastoo hadalhayn badan ay ka dhalatay Abiy Ahmed booqashadii uu ku tegay xeebta Lido, halkaasi oo ay sawirro ku soo galeen amaba ay ka soo muuqdeen isaga iyo madaxweynaha, gaar ahaan Abiy Ahmed oo farta ku fiiqaya badda Soomaaliya. Inkastoo dadka aadka u odorasa siyaasadda Soomaaliya ay si kale u rogeen booqashada iyo tegista ee uu ka codsaday dowladda Soomaaliya in uu xeebta Soomaaliya qayb ka mid ah u tago isla markaana isku soo sawiro.